waxaan u mahadnaqaynaa Cabdiweli Cawil oo ah nin deegaan ahaan kala mid ka soo jeeda gurmadkii degdeg ah ee uu ka soo jawaabay isagoo waliba deegaan fog jooga Garowe iyo intii kale ka soo shaqeysay halkan waxa dawadiisa kala wareegay gudidii caafimaadka ee loo dhisay xanuunka shubanbiyoodka agaasimihii isbitaalka 30 kartoon oo dawo ah oo Cabdiweli keenay 18 bisha oo ay suuragal weeday in xafladan loo qabto maanta ay suura gashay isagii hadir waa naga maqan yahay Garowe jira waxaan u mahadcelinaynaa boqol jeer Cabdiweli Cawil oo jooga Garowe waxaan kaloo rabnaa in ay cidii uu ka soo qaaday dawadaas ama wasaaradda noqoto ama hay'adda noqoto in xanuunkii uu jiro saaka kaliya hadir aan la hadlayno 24 bishii lixaad oo kiis ilaa 7 qof uu soo gaaray muddo saacadan isbitaalka joognay marka in haddana dawadii iyo mid ka badanba ay noo soo gudbiyaan baan ka codsanaynaa wasaaradda iyo hay'adaha ay quseeyaan xanuunka shubanbiyoodka ee maamulka Puntland. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. wasaaradda caafimaadka ee maamulka Puntland waan isleeyahay waa markii labaad dawadii ay noo soo dhiibeen kadib qayl dhaantayadii xanuunka shubanka ee degmada Kalabayd iyo eeriyadiisa dadka badan u soo daateen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waana ka gudoonay Cabdiweli Cawil oo daawadan soo gaarsiiyo ay u soo dhiibtay wasaaradda caafimaadka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad salaamanaa wasiirka caafimaadka Puntland dhammaan maamulkooda iyo cid kastoo ka qayb qaadata u danqata dadka shumaya ee indhihiinu arkayaan hareeraha meel walba jiifa aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa daawada tiradeedu waa 30 kartoon waxa ka horeysay tiro kale oo iyadana ma taqaanaa ka qayb qaadatay shubanbiyoodka hore ay noogu soo dhiibeen aad iyo aad baan ugu bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa isbitaalkii Kalabayd halka waxaan aad iyo aad uga salaameynaa ilaahay baa mahadna ugu celinaynaa bisha 20keedii 18keedii waxada dawadii ay noo keentay Puntland iyagoo aad iyo aad baaqayagii hore ugu nugulaaday iyagoo dadaalay bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan joognaa isbitaalka degmada Kalabayd oo bukaan jiif badan oo shubanbiyoodkii yaal ilaahay waxaan halkan markaa uga mahadcelinaynaa ilaahay baa mahadle marka koobaad marka labaad wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Puntland deeqay naga soo gaadhay oo 30 kartoona oo ka qayb qaadanaysa arinta caafimaadka iyo dadka la dadaalkooda baanu ka gudoonay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaanu leenahay soo kordhiya wixii ilaahay idinka waafajiyo intii tamartiina aad iyo aad baanu idinku mahadcelinaynaa